fiirsanaysi wallahi farlaata ka saacoy meesha waa liigu garaaca wax nolol ku meystay adii ma dhalin yahay ma lacagta iga soo dirtay maxaa meesha markasta igu fiirsataa way ilaahay ka cabso ila soo adil ii soo jawaab ad degdeg iigu soo jawaab ilaahay kugu dheeri hooy farxi ilaahay kugu dheeri hooy meesha hooya igu daaban wallahi bilaa hooy nolol meesha ku meystay 24 ka saac wallahi hooy meesha waa liigu dilaa oo meesha hooy wallahi meel isku dhacay ma oo dad cadaba hooy la jooga tani waxa way Farxiye Cali oo ku nool magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa muddo 5 bil ah gabadheeda Amal Maxamed Xasan ku haysta dalka Liibiya magafa ka dalbada inay bixiso $12,000 balse gorgortan dheer kadib markii dambe u sheegay inay bixiso $10,000 iska dhaaf bixinta lacagta tiradaas dhan waxa ku adag in ay caruurteeda kale u hesho waxa ay cunaan oo waxa ay shaax ku karaysaa meherad yar oo aysan dhaqaale ku filan ubadkeeda ka helin rajada kaliya ee Farxiye leedahay waa in dadka Soomaaliyeed ay ka caawiyaan sidii ay gabadheeda Amal uga bixin lahayd gacanta kuwa ay ku tilmaantay arxan laawayaal mar walba u soo duubaa codadka gabadheeda marka ay garaacayaan waa ay qaylinaysaa xanuun dartiis waxaana ka jabay gacan intii ay garaacayeen kuwa gacanta ku dhigay Farxiye Cali waxay dadka Soomaaliyeed ee fariinteedu ay gaarto ka codsanaysaa in qof walba wax uu awoodo ku taageero waxa iga haysta magafe wuxuu igu xukumay inaan $10,000 dhiib ana $10,000 meelan ka dhiib ma awoodo mana haysto codad badan ay soo duubtan waa kuwaana codadkeedii waxa ay magafa haysto markii tireen ay isdhahnay waa iska leedahay magafa ma haysto markii dambe waxa ogaanay inuu magafi haysto soo garaacayo markii dambe ii soo dirayba ali qad ma leeyihiin ay isticmaashiin iyo waxaas intuu yiri aada gabadha haysto horta codkeeda ima qashiye asagoo markaas buu ushu ku boobsiinay hooyada tiribu ushu qabatay كون وحوي يجلس بلعبة $12,000 $12,000 تيجي كينها ما بأوده به مقايدر الله يا شيخ عن كريا $12,000 حقيقي كينا مالك كانوا مأوده خد المصري كان لح قلا قف أبي وح يسيبه قف البوحي يقول هذا عرابة تيدي هي ستاو ضدك أم بأسكت باتي سنين وحالو جست تشردل قبصة شقط كل قبصة شو أسكت شفتها سلايا كل مقفل قبره قبصة إني كيف يوضع الله أعلم لكن هذا وحى أقدر دل عنه ويكتشبنتها Amal Maxamed Xasan waxa dalka Itoobiya ka waday oo tahriib ku qalqaaliyay dad la shaqeeya magafaha sida ay sheegtay hooyadeed Farxiyo fadlan caawi hooyo Farxiye Cali oo muddo 5 bil ah aan ka jeefan codka gabadheeda Amal oo garaacis joogto ah lagu hayo way ogtahay Amal xaaladda dhaqaale ee hooyadeed haddana waxa ay ku qaylinaysaa lacagta bixi hooyo hadda hoos ay madaxa u dhigtay hooyo Farxiyo waayo rajadeedu ma fiicna haddii aan laga soo gaarin codadkan gabadhan qadka ina isticmaalno marka hore way ogeed gabadha yartaa isticmaasho mid yarta ayada da'da ka yareed ku ka isticmaalo way ogeed xagga markay tagtay tiri meesha aad ideeda ka heli kartaa markaas sax noogu soo darsado ninka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa wixii muslim leh oo ii danqanaya in ila bixiyaan lacagtaas aan awoodin fadlan caawi hooyo Farxiyo oo sii faafi muuqaalkan kuna taageer wixii aad awoodo